في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين. daawadaha sharafta mudan kusoo dhawaaw channelka aad daawanayso waa Nasiya Media Production. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo hadda aad nagu soo beertay subscribe inoo saar si ay noogu noqoto dhiirigelin. maanta muuqaalka aan qaadan doono waa 12 qodob oo ay psychology ama culimada ku takhasustay culimada nafsiga ay ka yiraahdeen dabeecadaha dadka. haddii uu qofku wax badan hurdo waa qof murugo badan. 2 haddii uu qofku wax yar hadlo balse si boobsiisa u hadlo wuxuu xafidaa sirta waana sirhaye. 3 haddii uu qofku cuntada si aan caadi ahayn u cuno waa nervosism. 4 haddii uu qofku waxyaabo yar ka ooyaan waa qof jilicsan oo daacad ah. 5 haddii uu qofku ka caroodo waxyaabo yar oo ama nacasnimo ah wuxuu u baahan yahay jacayl. 6 haddii uu qofku wax kasta la weydiiyo si adag ugu jawaabo isdifaaciduna ku badan yahay waxa haya caqdad nafsi ama kalsooni daro. 7 haddii qofku marka uu faraxsan yahay hadalka joojin karin marka uu murugaysan yahayna hadal oran karin waa qof naftiisa kontrooli karin. 8 kali ahaanshuhu waxa uu sababaa qofka inuu ku daaho qoweyska ama wax badan hurdo aadna u fikiro. 9 haddii uu qofka marka la amaano farxo marka wax laga sheegana caroodo waa qof remote controlka dadka kale ay u hayaan oo ay sidii rabaan u bedeli karaan. 10 inaa xiriirka lagu murmin waxay ka dhigan tahay inuusan xiiso jirin. dadka aadka isku daneeya way murmaan marar badan. 11 haddii qofka dantiisa dadka uga dhigo dan guud waa afmiishaar ama tufatoore. 12 haddii qofka marka uu rabo inuu dadka wax u sheego yiraahdo afkeenu waa isku amaan ama dhaaro inaad cid kale u sheegin waa xambadane fadlan iska ilaali. haddii aad ka heshay muuqaalkeena fadlan like inoo saar si aan u ogaano heerka qiimeynta muuqaalkan iyo meesha uu ka gaaray dadka. hana iloobin inaad noo share gareyso kadibna wixii araa ay inoo haysaan nagu reeba qaybta